ciidanka booliisku waana nabad waana qurux labadaasaa lagu yaqaanaa qurux iyo nabad nabadda inuu ka shaqeeyo waa shaqadiisa quruxda inuu ka shaqeeyo waa shaqadiisa sida hadda kooxdan abaabulan oo sida isugu jaan go'an tahay oo ay isula helayso oo ama hadday tahay hees ama soo dhoweyn ama qiirayn sidaas quruxda badanlana waa lagu yaqaan inay nabadda ka shaqeeyaanna waa lagu yaqaan nabadda iyo quruxduna wax isla waaye oo aan kala harin meeshii nabadu ka jirto quruxaa ka jirta meeshii nabaddarra ka jirto iyo dhibaatana waxaa ka jirta foolxumo waxaa meesha ka maqan oo rabaa taliyaha iyo saraakiisha kale inaan ku baraarujiyo meel kasta oo aan shir ku qabanayno ama booliisku ha qabto ama hay-adaha dawladdu ha qabtaano waa in ciidamada nabadgelyadu ka muuqdaan oo maamuuska iyo quruxda shirarka qayb ka qaata taliyaha booliiska iyo saraakiisha kale waxaan rabaa inaan faro in ciidamada nabadgelyada ciidamada taraafikada loo yaqaano in ay shir kasta oo aan joogno ay ka muuqdaan si hab maamuuska iyo quruxda iyo xaggee baabuurka la istaajinayaa wafdigu xaguu marayaa in laga hela loo baahan yahay marka arrintaa in la xoojiyo waxaa kaloo jira jidadka maanta magaalada muqdisho ee aad ciriiriga u ah ee amniga dhibaatada u keenaya ee kala socodka xumaanayo waxyaabo kale oo ka baxsan way jiraan oo hadda aan ku hawsheeda ku jirno gawaaridan waaweyn iyo dekedda iyo howlaheeda hadda waan ku jirnaa waa hawl culus oo wasaaradaha iska kaashanayaan wasaaradda gaadiidka iyo wasaaradda dekedaha iyo wasaaradda amniga iyo gobolka iyo booliisku inay iska kaashadaan sidii baabuurtan waaweyn oo jidadka xidhaysa loogu heli lahaa arrintaa waan ku jirnaa laakiin waxaa si gaara noo sii khuseeya annaga in jidadka waaweyn ee magaalada la maro isgoosyadaasi inaysan xirmin inaysan noqon ciriiri inaan baabuurta shilalku badan inaan amnigu xumaan waxaan rabaa in aan faro mar kale taliyaha booliiska iyo taliyaasha kale in waqtiyada ciriiriga iyo guud ahaan waa in taraafikada jidadka lagu arko waa taraafikada jidka taagan habmaamuuska iyo quruxda iyo dowladnimadu waxaan u baahanahay in la helo taraafika waa inay timaadaa isgoosyada oo ay kala hagtaa sida wax u kala socdaan arrintaasi aad iyo aad ay muhiim u tahay inay ka muuqdaan magaalada iyo quruxdeeda iyo kala hagisteeda haddaan u soo jeesano shacabka iyo booliiska maxaa ka dhexeeya booliisku waxa waaye waa hay-ad nabadeed waa saaxiibka shacabka waxaa loo baahan yahay inuu oda dhaqameedyada iyo haween dhaqameedyada oda dhaqameed kaliya ma jiro haween dhaqameedyaa jira ka kulul kana hawl badan kana karti badanaa jira oda dhaqameedyada laakiin lama sheego dhaqankeennu ma sheego oo dhaqan ahaana annagu waxaan nahay dad reer guuraa oo haweenka aan qiimo badan siin waa ku faraxsanaa maanta inay aad uga muuqdaan meeshaan weliba discibliinka aan ku arko afku inuu u xiran yahay ayagaa naga badiyey marka waa u sacbiya horta oda dhaqameedyada iyo haween dhaqameedyada waa in ay booliiska la shaqeeyaan waa inay booliisku la tashadaan booliiskana taliya iyo taliya xigeenna iyo saraakiisha waxa bulshada ku xirani ma aha taliyaha booliiska iyo saraakiisha ku xigta waa ninka jooga taliyaha booliiska waaye ee xaafadda jooga taliyaha waaxda kan jooga ayaa loo baahan yahay inuu bulshada la tashado odayaasha la tashado saraakiishu meel walbay degan yihiin la tashado isku xiraan qiimale oo ka dhaxaysa ciidanka booliiska xaafadda odayaasheeda haweenkeeda dhalinyarada ka dhaxaysa oo ay dareemaan waxa laga shaqaynayo wixii ay ayagu lahaayeen inay yihiin loona baahan yahay inay tala ka bixiyaan tusaale ka bixiyaan xogta soo gudbiyaan ayaa loo baahan yahay marka qofka naga xiga taliyaha booliiska iyo taliyaasha waaxyada waa kuwa loo baahan yahay kana aan farayo in ay loo furo seminaar ku wajahan xilliga soo socda hawsha aan u baahannahay iyo sida ay u culus tahay iyo sida loo baahan yahay wada shaqayn gaara inay naga dhaxayso arrintaa waxaan u baahanahay in seminaar loo furo taliyaasha booliiska saldhigyada aan u jeeda taliyaasha saldhigyada taliyaha iyo ragga hoos yimaada iyo qaybta kale ee nabad sugidda in laysku xiro wada shaqayn guddoomiyaha degmada taliyaha booliiska taliyaha nabad sugidda wada shaqayn in loo furo oo seminaar loo furo ayaan u baahannahay si magaaladan oo hawl culus ka dhici doonto oo doorashooyinka dhacayaan nabadeeda ay uga qayb qaataan iyo guud ahaan magaalooyinka kale ee doorashooyinka dhacayaan waxa aan rabnaa inaan bedelno qoray kaliya ku bedeli mayno wacyigelinta wasiirku shaan ku bedelaynaa laakiin muhiimaddu waxay tahay haddaan qofkii wanaag sameeya laga farxin haddaan la ammaanin haddaan loo sacbin haddaan la garab istaagin ma dhaqaaqayo wanaaggu halkaasuu taagnaanaya
sidaa darteed waa inaan is aqoonsannaa waa inaan isqirnaa waa inaan qofkii wanaag sameeya aan idhaha waa mahadsan tahay xilligu wanaaggu yaraaday waa kor loo qaado oo la tuso bulshada qofkii wanaag sameeya qiimaha uu leeyahay jenaraal kaahiye waxa halka loogu bixiyana waa waxaas jenaraal kaahiye waxa meeshaan loogu bixiyey waa in la qiro wanaaggii oo u dhintay ninkaas runtii booliiska ammaantiisa ma soo koobi karo riwaayadda halkan lagu dhigana waxay ahayd riwaayad isu dheeli tiran oo dhaliilana sheegaysa wanaaggana sheegaysa runtii waana qof kastoo shaqaynaya inuu dhaliilo leeyahay waa la ogyahay laakiin wanaaggaa badan sidaas darteed haddaan hadda ku sii darno inaan seminaara u furno sii dhiirigelinno way ka sii wanaagsanaanaysaa dhaliiluhuna waa jiraan shaqadii la socdaan dhaliiluhu shaqadii la socdaan waa jiri doonaan ugu dambayntii waxaan rabaa halkan fariin inaan ka diro magaaladan iyo magaalooyin kale oo badan waxay gelayaan doorasho annagana waxaa naga khuseeya amniga ayaa naga khuseeya waxaan aad ugu faraxsan oon ogahay mas-uuliyiinta xilka joogta iyo kuwa hadda doonaya intuba waxay ka midaysan yihiin dad mas-uuliyiin soo noqday madaxweyneyaal wasiiro bareministero soo noqday oo mas-uuliyadda dareensan oo og waxa ka jira waddankan oo maalintii ay joogeen jeclaa inay wax walba isku toosnaadaan ragga wax raadinayeen waa noocaas walaalahooda hadda jooga siday ragga wax raadinaya u jeclaayeen maalintaas in amniga la ilaaliyo ayay hadda mas-uuliyiinta joogana u jecel yihiin amnigu waa ka weyn yahay mas-uuliyiinta hadda joogta waa ka weyn yahay kuwa raadinaya hadda amniga waxaa iskale bulshada Soomaaliya iskale amniga bulshada Soomaaliya iskale waa ku celinaya amniga bulshada Soomaaliya iskale maalin waxaa la soo maray sarkaalnimo laga dhuumanayo maalin waxaa la soo maray dawladda laga dhuumanayo maalin waxaa la soo maray wax kastoo dawlad ku saabsan ciidanka dharkiisa maalin la diida la soo maray maantana waa lagu faanayaa shaqada dawladda la raadinayaa saraakiilnimada la raadinayaa dallacsiis baa la raadinayaa waxaasoo dhanna shaqo la soo qabtay waay waxaan mar kale baaq u dirayaa mas-uul kasta oo waddanka jooga ee mas-uuliyad ka raadinaya ama xildhibaannimo ama madax kale ama wax kale amnigu waa naga weyn yahay waa naga horreeyey waa naga dambayn doonaa bulshada Soomaalida iskale qof gaara male inaan wada ilaalino ayaguna waan ogahay inay og yihiin waan ku baraarujinayaa waana ka codsanayaa amnigu naga weyn aan wada ilaashano baaqaasaan diraynaa annagana haddaan nahay wasaaradda amniga iyo ciidamada hoos yimaada amnigu waa loo siman yahay wax loo siman yahay waaye wax muxaafid mucaarad khusee ma aha si annagu waxaan u shaqaynaynaa amniga baan sugaynaa wax kasta oo amniga wax u dhimayana waa ka hortegaynaa sharcigaasaa sheegaya waajibkaa sheegaya annagoo sharciga ilaalinayna weliba ixtiraamka iyo wax kasta oo wanaagsan haddana wax walba oo dhibaato keenaya oo qofka ku dhaqaaqaya laftiisa dhibaatada ugu horeysa ugu keenaya waxaan annagu ku khasbannahay inaan gacanta qabanno unsur akhaaka zaaliman ow madluuman sida nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam walaalkaa hadduu gar leeyahana garsii hadduu gar darayana garsii war hadduu gar leeyahay la garaya hadduu gar daran yahay seen ku siinaa gacmaha qabtou wiri marka cid kasta oo ammaanka wax u dhimaysa gacmahaan qabanaynaa war ka joogaan leenahay war ka daayaan leenahay hadduu diidan yahana asagay dantiisa tahayna sharcigaan ku qaadaynaa mar kale iyo mar labaad waa mahadsantihiin waxaa meeshaan ka dhaca wax qurux badan bay ahaayeen isku jaan go'an isku toosan waana waxa aan dhiirigelinayno waana waxa aan rabno bulshada inaan dhaxashiino maalin walba tareenka dawladnimada waa laga degaa waa la soo koraa lama yaqaano inta saaraanayso waxa loo baahan yahay inta aan saaranahay tareenka dawladnimada inuu nadiif ahaado tareenkaas loo baahan yahay aad iyo aad u mahadsantihiin